barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisaya xarumaha danta guud ee dalka ayaa si habsamida u soconaya tan iyo markii lagu bilaabay isxilqaan dalkaaga ku dhiso muwaadin waxaana muuqanaya guulo waaweyn oo laga gaadhay iyadoo weli soconaya kartankii lixaad ee hay-adaha dawladda soomaaliya kuna aadanaad isxilqaan dalkaaga ku dhiso ayaa laba hay-adood oo ka mid ah hay-adaha dawladda soomaaliya ay isku mar ku wada kulmeen shaqada laga hayo madxafka qaranka labadan hay-adood ee halka mar soo wada galay shaqada qaranka ayaa kala ahaa guddiga dib-u-heshiinta qaranka iyo xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka waxaana isu kala qaybiyeen shaqada baaxadda leh ka soconaysa xarunta madxafka qaranka faarax cabdi maxamed oo ah xubin ka tirsan guddiga dib-u-heshiinta qaranka iyo cabdinaasir maxamed xasan oo ka mid ah howlwadeennada xafiiska hantidhawraha guud ee qaranka oo u kala hadlay labadan hay-adood ee isku marka ku wada kulmay shaqada isxilqaan ayaa sheegay inay labada hay-adoodba diyaar u yihiin dhismaha dalka maanta waxay noo tahay maalintii wareeggii lixaad tartanka loogu jiro isxilqaanna waxaan ku rajo weynaa inaanu gallo kaalinta koowaad dee alla ka dhigo insha allah waan uga mahad celinaynaa ciddii nala soo qabanqaabisay hawsha tan gaar ahaan weliba maamulaha arrintan gacanta ku haya ismaaciil annagoo xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka ilaahay waxaan insha Allah ka rajaynaynaa inaanu guul ka gaadhno waxa la leeyahay meesha noo diray qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay inaan ka qabanno guddiga dib-u-heshiinta qaranka oo waan ka tirsanahay waa markii lixaad oo ka shaqeeyo isxilqaankaas oo horay beelahan aan ugu soo dhisnay iska wax qabso anigoo xoog loo dhalinyaro ah ba iska wax qabso wax kaga soo dhisay halkan maantana alxamdulillah ilaah baa mahad iska leh ana odaya wali xoog laan isxilqaan wax kaga dhisaya shaqaalaha dawladda Soomaaliya ayaa ka soo gudbay 6 wareeg oo hore oo lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka iyagoo soo qabtay shaqooyin la taaban karo laguna dhisayo goobaha lafdhabarta ee dalka Abdirasaaq Xaaji Saleebaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho